Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa maalinimo Jimco ah bisha December waa 10 sanada 2021. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadamada ay TPLF taageerada ugu badan ka helaysay oo la ogaaday. Qurba joogta qaar ka mid ah qowmiyadaha Tigreega iyo Oromada oo dibadbaxyo waaweyn ka dhigay wadamada Ingiriiska iyo Australia. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la xiriiray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynayaal badan oo Afrikaan ah. Dhanka Soomaaliyana waxaa ugu waaweyn midowga musharaxiinta oo qaatay go'aankoodii ugu dambeeyay doorashadana ka hadlay. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Aan ku bilownay wararka dalka Itoobiya. Kooxda dagaalka adag kula jirta dowladda dalkaasi Itoobiya ee TPLF oo markuu sigatay inay la wareegto xukunka dalka Itoobiya kadib markii ay soo eriyatay ciidamada dalka Itoobiya oo dagaal adag ay kula galeen waqooyiga dalkaasi ayaa hal mar la soo baxday awood lama filaan ah iyadoo ciidamada dalka Itoobiya ay horey intay ugu tageen gobolkooda Tigreega ay meesha ka saareen balse rawaal celin xoogan soo sameeyay isla markaana ku sigtay inay soo galaan magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya. Waxayna ku qasbeen in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya uu gudaha u galo furimaha dagaalka isla markaana uu halkaasi hogaamiyo ciidamada dalka Itoobiya. Kooxda TPLF ayaa la soo saaray warbixino sheegaya in ay taageero waaweyn ka helaysay wadamo daris la ah dalka Itoobiya isla markaana loo soo marinayay saanadaha iyo waliba waxyaabaha ay uga baahan yihiin goobaha dagaalka. Xoojin weyn u sameeyay isla markaana dagaaladii ay guulaha waaweyn ka gaadheen iyagu ka dambeeyay. Wadamada la sheegayo in kooxda TPLF ay taageero buuxda siiyeen waxaa ka mid ah labada Suudaan. Waa Suudaan iyo waliba South Sudan. Dowladda Suudaanta weyn oo taageero weyn u muujinaysa kooxda Tigreega ayaa ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya oo isku hayeen webiga Niilka. Waxaana kooxda TPLF u noqotay fursad ay uga faa'iideysato in dowladda dalkaasi Itoobiya ay dagaal xoog leh kula gasho isla markaana ay ka hesho taageero wadanka Suudaan oo ku taageerayay kooxda TPLF inay xukunka ka tuuraan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Dowladda dalka Suudaan iyo magaalada Khartoum ayaa loo soo marinayay saanado kala duwan iyo waliba waxyaabihii ay dagaalka ku galeen kooxda TPLF oo noqotay koox awood badan isla markaana ay u babacdhigi waayeen ciidamada dowladda dalkaasi kuna sigatay inay soo bagasho magaalada caasimadda u ah dalkaasi Itoobiya isla markaana ay meesha ka saarto xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxaana la fahmi lahaa meesha ay uga imaatay awoodan xooggan kooxda TPLF. Warbixinta haatan soo baxday ayaa tilmaamaysa in kooxda TPLF ay helaysay taageero nooc walba leh oo kala duwan isla markaana loo soo marinayay dowladda dalka Suudaan. Taageerooyinkan u imanayay kooxda TPLF ayaa la sheegayaa inay ka imanayeen qaar ka mid ah dowladaha Carabta iyo waliba wadamada reer galbeedka halkaasina ay u soo mareysay wadanka Suudaan iyo magaalada Khartoum. Dhanka kale dalka South Sudan ayaa isagana taageero buuxda u muujinayay kooxda TPLF waxaana dhinacaasi ay ka helayeen kooxda TPLF sida warbixintu sheegtay dhaqaatiirta iyo waliba meelaha ay doonayaan inay la xiriiraan madaxda kooxda TPLF oo halkaasi tagi jirtay. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in labadan wadan ay door weyn ku lahaayeen soo laabashadii kooxda TPLF oo mar laga saaray gobolka Tigreega balse rawaal celis xoogan ku soo gashay wadanka Itoobiya isla markaana dagaalo waaweyn ku soo jabisay ciidamada dowladda dalkaasi Itoobiya kana qabsatay magaalooyin waaweyn. Kooxda TPLF oo haatan u muuqata inay ka baxayso magaalooyinkii horey uga qabsatay ciidamada dowladda ayaa la soo sheegayaa in kooxdaasi ay ku yaraatay saanadii ay ku dagaaltegayeen isla markaana ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya ay haystaan waxaanay haysanin kooxda TPLF oo ah diyaaradahan qumaatiga u kacaya iyo waliba kuwa aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha waaweyn u geysanaya. Dowladda dalkaasi Itoobiya ayaa ka gacan sarreysa haatan kooxda TPLF iyagoo u muuqda in magaalo walba laga saarayo. Dhanka kale qurba joogta labada qowmiyadood ee Oromada iyo Tigreega ayaa dibadbaxyo waaweyn ka dhigay magaalooyinka London iyo waliba Melbourne ee ku yaala wadamada Ingiriiska iyo Australia. Waxaana qowmiyadaha Tigreega iyo Oromadu ay taageero weyn u muujinayeen kooxaha TPLF iyo waliba
Ola oo ay sheegeen inay u dagaalamayaan dadka Oromada iyo Tigrayga. Qowmiyadahan dibadbaxa sameynaya ayaa sheegay in dowladda dalka Itoobiya ay tacadiyo kala duwan u geysatay dadka Tigrayga iyo weliba Oromada. Waxay sheegeen in dowladda dalka Itoobiya ay tacadiyadaasi ka geysatay gobolka Tigrayga iyo weliba meelo ka mid ah Oromada, welina ay ku sii wado dagaaladii iyo weliba dhibaatooyinka ay ku haysay gobollada Tigrayga iyo Oromada. Waa sida iyagu sheegeen. Dibadbaxyadan ay dhigayaan qaar ka mid ah qowmiyadaha Tigrayga iyo Oromada qurba joogtooda ku sugan wadamada Ingiriiska iyo weliba Australia ayaa u muuqda kuwo taageero buuxda loogu muujinayo kooxaha dagaalka kula jira dowladda Itoobiya ee Oromada iyo weliba TPLF-ta Tigrayga, waxaana kooxahaasi haatan u muuqdaan kuwo ay ka gacan sareyso dowladda. Dibadbaxyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda dalkaasi Itoobiya ay qabsanayso magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Axmaarada iyo weliba qaar ka mid ah Oromada. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa la xiriiray xogayaha guud ee Qaramada Midoobay iyo madaxweyneyaal badan oo Afrikaan ah. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dib ugu soo laabtay maalin ka hor magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa wada shaqooyin waaweyn iyo weliba xiriiro kala duwan oo ula sameynaya dunida, wuxuuna ra'iisul wasaare Abiy Ahmed la xiriiray madax badan oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, madaxweynaha Kenya, madaxweynaha Uganda iyo weliba madaxweynaha South Africa iyo qaar kale oo ku yaala wadamada Afrika oo ay ku jiraan wadamada Senegal iyo Congo. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la xiriiray xogayaha guud ee Qaramada Midoobay iyadoo la sheegay inay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba Antonio Guterres dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya ay dowladda Itoobiya ku wajahayso ciidamada TPLF-ta iyo weliba Oromada isbahaysiga samaystay. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa la sheegay inay ka wada hadleen qaabkii ay Itoobiya horey ugu socon lahayd isla markaana loo soo afjari lahaa colaadaha ka taagan waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la sheegay in madaxda dowladaha Afrikaanka uu ka codsanayo in ay taageero buuxda ku siiyaan dowladdiisa sidii loo soo afjari lahaa colaadda dalkaasi, isla markaana uga guuleysan lahaa kooxaha dagaalka kula jira ee TPLF-ta iyo weliba Oromada. Haatan aan eegno daawadayaal wararka nooga imanaya dalka Soomaaliya. Midowga musharaxiinta oo go'aan ugu dambeysa ka qaatay doorashada dalkaasi Soomaaliya oo baryahanba qasnayd isla markaana lagu eedeynayay dowladda dalkaasi in ay boob ku wado doorashada ka socota dalkaasi ee dadban. Midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in xaaladda doorashada Soomaaliya ay qasan tahay, iyagoo soo jeediyay in doorashada la hakiyo, shir wada tashi ahna la isugu yimaado si loo joojiyo boobka loona xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka. Sidoo kale waxay soo jeediyeen in la saxo habraaca iyo habdhaqanka doorashada oo ay ugu horeyso in la shaaciyo liiska 135 oday iyo in la xaqiijiyo ergada doorashada in ay yihiin kuwo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka ee la diiwaan geliyay. Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka haddii la waafajiyo shuruudaha ay soo jeediyeen. Haddii la baal-maro, waxay qaadi doonaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah samata bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo loo qaadan karo inay tahay inay dhisayaan gole ku meel gaadh ah oo dalka maamula. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaanba wararkii naga soo gaadhayay Geeska Afrika. Inta ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.